أبلا ونصعنكرا وزيرك وزارة هرمرنت بيها دلك جمهورية الصومال مدن سليمان يوسف علي كوري أي maanta geedkii ugu horeeyay ka beeray xarunta wasaaradda deegaanka iyo waliba xarunta maamulka gobolka Sool maalintan oo lagu aastay maalin qaran oo ah maalinta 15 Abriil oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi uu aastay in ay noqoto maalin qaran oo dhirta dhirbeerista ah wasiirka iyo wafdigiisa oo ku sugan xarunta maamulka gobolka Sool Lascanood oo howlo shaqo u jooga ayaa dhirtaasi ka beeray xarumaha kala duwan ee maamulka gobolka Sool sida wasaaradda deegaanka xarunta maamulka gobolka Sool asbitaalka guud iyo waliba boardingka magaalada Lascanood saaka iyadoo ay tahay 15 Abriil oo ku soo saaray wareegto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inay noqoto maanta maalinta dhiraynta gobolada Soomaaliland ama dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan saaka halkan u taaganahay qaybintii dhirtaas oo ku wareejinayno saaka dhammaan maayirada gobolka Sool iyo mas'uuliyiinta kale ee degmada waxa weeye muhiimadda dhirtan loo keenay waxa weeye waa inay ka qayb qaadato bilicda quruxda faa'iidooyinka dhirtu ay leedahay waxa kamid ah inay noo soo qabato roobka inaynu ka harsano cadceedda inay ka qayb qaadato climate-ka ay dhexdhexaadiso climate-ka deegaanka sidoo kale dhirtu waxay ka qayb qaadataa inuu noqdo dhulku qaab dhismeedka dhulka bay ka qayb qaadataa inaan erosion bay ka qayb qaadataa daadadka yaraysaa waxay leedahay cuntooyinku ka helaa hoyga aynu galaynu ka helaa xoolaha inoo daaqa waxa weeye ma koobi karno faa'iidadeeda dhirta marka waxaanu ku boorinaynaa dadkan dhirta qaadanaya qof kastooba inaad xilis ka saarto si aad deegaankaaga bilicdiisa u muujin lahayd quruxda dhulku waxay ka mid tahay in dhir lagu beero waayo qofka quruxdiisa waxa weeye waa inuu dhir sito baa soo saarto qofka quruxdiisa haddii dhulku uu dhir leeyahay isagana waxa weeye wax soo baxaysa quruxdiisa geedkeedkeen markaa xafladan balaaran ee saad la socotaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu wareegtay waastay 15 bisha Afraad inay tahay maalinta deegaanka waxaan leenahay madaxweyne waad siibtay markaan soo noqono waxa na soo gaaray dhirtii ay noo soo dirtay wasiirka wasaaradda deegaanka marwo Shukri Xaaji Baandara wasiir dhirtaas wana soo gaadhay magaalada waa lagu beerayaa dadweynaha magaalada Lascanood waxaan kula dardaarmaynaa inay dhirta ilaashadaan waa ilmo yaroo la ababinayo buugeed kulmadiye marka la beerayo marka qof walba degmada Lascanood ku nool waxaan ugu baaqaynaa inuu gurigiisa ku horbeero uu dhaqaaleeyo xanaaneeyo aad baa maasantii alxamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana ila ala daalimiin waa 15 bishii Afraad 2018 waa maalintii qaranka u haystay madaxweynaha qaranku inay noqoto maanta maalintii qaranka ee dhirta saad la socoto waxaan ku suganahay wasaaradda horumarinta deegaanka ee gobolka Sool waxaanu soo gaaray dhir cadadkeedu ay tahay 1000 iyo xoogaa waxa garbahayga taagan maayirkii caasimadda gobolka Sool Cabdicasiis Tataarwale maayirkii degmada Boocame iyo maayirkii degmada Yogoori anagoo maamulka gobolka ah saaka waxaanu ku wareejinaynaa maayirada dhirtii loogu talagalay inay degmooyinkooda ku beeraan taas oo aan rajayn doono inuu ku dabageli doonaan maayiradu qaasatan waxaan la dardaarmayaa maayirka caasimadda inuu ku dabagalo hay'adaha dawladda xafiisyadooda markuu qaybiyo oo talaabo ka qaado ku haboon cid dhirta aan beerin bilicda magaalada ay qayb ka qaado dadka waxaan leenahay waad aragtaan had iyo jeer cimilada way isbedeshay kuleylaa jira roobku waa habsaamaa had iyo jeer waxa keenaysa waa dhir la'aanta gobolka taagan waxaan idinku boorinaynaa waa dhirta beerta oo sidii ay wasaaradda horumarinta reer miyigu ay sheegtay wasiiradeedu Masar Shukri waxa ku filan oo kaliya mataqaana weysada aad ku weysaysataan maalin walba inaad baaf u dhigtaan oo aad ku waraabisaan waxaan kaga baxnaa aad iyo aad baa salaamantiin saxaafadda dawladda iyo kuwa waxaan ku wareejinaynaa 5 maayir inkastoo hadda halkan ay nala joogaan maayirka degmada Boocame Yogoori Kalabayd Xudun iyo maayirka caasimadda gobolka 5 maayir baan ku wareejinaynaa iyagana waxay kaga halgeli doonaan deegaamada iyo magaalooyinkooda inay ku beeraan mas'uuliyaddan ayaga qaaday waxay saacada ka dambeeya dhirbeeritaanka anaguna waa ku garab taagan hadii la yiraahdo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh rabbil alamin wa salatu wa salaam ala ashrafil anbiya wal mursalin maanta waa maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u aasteeyay inay noqoto maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo hadafkeedu yahay in cimiladan isbedeshay iyo deegaankan nabaad guurku ku dhacay inay wax ka bedesho dhirta la beerayo inay wax ka bedesho bilicda magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan waxaynu joognaa magaalada Lascanood oo magaalada ugu dhirta yara
marka labaad waxaan baaq u dirayaa dadka reer Lascanood inay guryahooda ku beeraan dhirtan oo faa'iido badan u leh ay harsanayaan qurux u soo jiidaysa cimilada iyo deegaanka wax ka taraysa roob yaraanta meelo meesha ka dhir badan tahay ka roob badan marka inagoo intaas oo hadafyada ka duulayna oo fulinayna waajibaadkii madaxweynuhu ina faray waxaan maanta halka ku beerayaa geedkaygii bismillaahir rahmaanir rahiim قفية جيت لا قفية بسم الله الرحمن الرحيم وهمرخاتي كتهين أنا قفلنا ورقتي مدحوينا جمهورية الصوماليلان مسبحي عبدي وأضنا أمد الصوماليلان ميل كستي شوكتو ولو أستيي مالنتا شان يتبنك في أبريل مالنتا درينتا الصوماليلان حاشرف وين نوعه كرامة يعيش وكرامة يعيش النوع إن أي نجات كي أقولي مانتا يضع يجوبشوا كيهين ما يركي عاصمة إيو يسدوياش قبل كي جفرنر كي إيو لما المسؤولين تحل بعنا دي هير قرانا نود السعوني إن نجات كي أقولي هل كان كبيرينه حنا لنا هاي إلهو naga aqbalin dhirtaasi ay noo baxdo gobolka maayarka caasimada سدوي الدجاجة هير قرن المارية أبويك اللي بنا فربضم إن إنه هالكن ما أنت برخاتي كنا إنه كبير إنه جيدتك أنا جو فلنا إن أمر هذه مدحوينها حرمتها gobolka صول حرمتها بحياة gobolka صول تاسو أنا سلال هجيت كانوا يحلون دوران يدو حبذا كوسو كلية بسم الله بسم الله وش البيرو